bismillahi raxmaan raxiim casharkan hore waxaan soo sabaysanay main contentigii iyo articles ku dhex jiray casharka waxaan sabaysanaa maadaama aynu section haysano iyo main halkan waxaan kusoo daranayaa section kale oo la dhaho aside soo waxaanu bixinaa aside waa html5 semantic elementiska ka mid yahay section main aside article waxaasoo dhan kalaaskiisa waxaan leenahay sidebar ama aside so waxaan leenahay sidebar isku magac baynu bixinaa aside sidebarkaas wuxuu u baahanayaa division ama divider kalaaskiisu yahay inner oo gudihii ah soo divisionkaas aynu waxaan sii dhex gelinaynaa xabad h2 oo header level 2 ah recent posts tusaale ahaan halkan waxaan kusoo daranaynaa hrefs ama links href tusaale waxaan leenahay just related posts oo qoraala ah intan yaraan soo qaadaynaa copy inoo copy garee copy paste so intaan markaynu samayno divisionka aynu xidhaynaa waxaynu kale u baahannahay tusaale ahaan midka labaad oo iyana categorieska oo kala soo inarkaas aynu qaadaynaa copy halkan waxaan dhigaynaa categories ama qaybaha tusaale qaybaha websiteka waxa weeye waa html css javascript php soo inarka markaan samaysanay haddaynu yarayno wax isbedela haddeer u jeedid arki maysid sababtoo ah jas waxaa la dhawaa links recent posts halkan ay soo gasha iyo categories labadiiba halkan ay soo galeen okay sidee baan markaa wax uga bedeli karaa recent postskan iyo categorieska okay aan tago qaybteeni css-ka sidebar soo halkan waxaan target garanaynaa aside classka la dhaho maxaan ka bedeli karnaa classkan marka ugu hore waxaan leenahay float left dhanka bidix aad marka labaad waxaan leenahay asideka woods baynu siinaynaa 24% oo ah ballac maadaama kii hore ee section ku qaatay 70% inta yara soo hadhay ayaanu siinaynaa waxaan kaloo siinaynaa background inuu ahaado f1 midabka mar walba isticmaalaysanay ugu dambeynna waxaan siinaynaa margin dhinac walba inuu kuwa kale ka durko 20 pixel soo sayid baa arkaynay halkan ku jira oo ujeedaa inuu halkan taagan yahay sababta xaggan usoo geli wayn waxaan rabaa in halkan soo galo sababta usoo geli waxa weeye elementigan kale ee sectionka ah float male hadduusan float lahayn elementigan halkan soo geli maayo sectionkana waxaan ku dhahayaa float left soo sectionka markaan float gareeyo still ma soo gelin size yar siiyo asidekayga waxaan siinayaa 20% soo asidekayga halkan soo gala waxaan kaloo u baahanahay asidekayga maadaama asidekay ku guuleystay waxaa ku dhex jira wax la dhaho inner soo waxaan leenahay aside h2 gaar baa u target garaynaya waxaan leeyahay margin 0 marginiskoo dhan iga cancel si ugu dhigo dhabarka backgroundkana waxaan ka dhiganaa midab kale black ama 000 colorka white fff waxaan siinaa baadin oo ah 10 pixel dhinac walba okay intaan markaynu sameyno waxaan target garaynaynaa oo kale hrefka soo calinay aside iyagana laftarkooda waxaan rabaa inaan ka dhigo tusaalahaan colorkooda ayaan bedelaya color waa fff ama 444 oo ah midab aan madow badan ahayn text decoration ayaan bedelayaa underlineka ka baabina waxaan leeyahay non oo ujeedaa xaggan bidixda in decorationka ka baaba'ay non markaan idhi waxaan bedelayaa display oo ugu muhiimsan maadaama inline block yihiin waxaan leeyahay inline yihiin display block baan dhigi karaa waxaan leeyahay inline block soo ujeedaa inay mid walba line gaara ku fadhiistay waxaan kale u sameynayaa bottom 1 pixel solid xagga hoose border inay ku yeesho mid walba oo ah midabka ddd black aan aada u badnayn ama grey oo kale ah woodiskooda ayaan bedelayaa oo aan ka dhigayaa 100% se ugu fadhiistaan mid walba areadiisa ugu fadhiisto waxaan bedelayaa line heightka 1.5 aan ka dhigay si mid walba ugu fadhiisto macnaha uga fogaada ka kale line heightka labadan line intay kala fogaanayaan waxyaabaha kale aan bedeli karna iyaga muhiimka waxaa weeye baadin
sidaad inta oo kala hormarin kara 10 pixel mid walba mid kale 10 pixel ka durki. ugu dambeyn waxaan eegaynaa maadaama ay ku dhex jireen class la dhaho inner, waxaan leenahay inner ayaan target garanaynaa. margin bottom waxa ka hooseeya waxaad ka durkisaa boqolkiiba 10 pixel ayaan leenahay ka durki. soo awdare saas ah haddii kan laakiin labadan waxay kala durkayaan 10 pixel buu category-ga iyo recent post kala durkayaan. haddaan u samayn ma kala durkayaan 10 pixel. haddaan badiyo ka dhiga 20 pixelna 20 pixel bay kala durkayaan, no problem. waxaan kaloo target garanaya waxaa ujeedaa halkan oo dhan inuu line ku jiro oo mid walba tiisa ugu dambaysa inuu line ku jiro. soo aside-ka ayaan target garaynayaa. aside baan leeyahay last child-keeda oo border lahaa anaa border wuxuu ahaada none. soo haddee last child-kan sidebar ku dhex jira wax border male, kuwa kale border way leeyihiin. last child-kan si loo target garay waxaan ku aragnay casharkeena css. okay haddaan ballaarino yes sidebar qurux badan oo noocan oo kale ah ayaanu sameynaa. wow insha allah casharkan dambe waxaan ku qaadanaynaa waxyaabaha kale aynu ku bedeli karna bogoskeena. wabilaahi towfiiq.